السلام عليكم أصحابتا صلاة سومالي تكنولوجي يوتيوب جانالكا ويلكم باك أصحابتا إن مدة إخوان إذا مقنعي موقعك السؤال أفستان إذا شيء مشغول بانا هاي لكن هذا سؤال لابتي الحمد لله waxaan doonayaa inaan halkii noo sii wada kuwaaskeena noo socday si language muuqaaladii ka dhinnaay ama topic sidii aan ka tegay inoo dhammaystiro maanta asxaabtu waxaan idiin wadaa cashir baardiis sida topigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay array using C programming language okay waa maxay macnaha array sidee loo isticmaalo advantage-keeda and disadvantage-keeda okay asxaabta halkan saa ugu jeediin waxaan haysanaa dhowr definition because intaanan yacni gudagelin sida loo isticmaalo waxaan doonaynaa definitionaadkeeda ama ujeedka laga leeyahay inaan fahanno so halkan saad ugu jeediin waxa definition koowaad wuxuu dhahaa array is used to store a collection of data items sharing a common name so macnaheedu waxa waa array is used to store a collection of data items collection of data elements and data items kuwaasoo yacni share gareeyo common name macnaha waa tusaale kaleetooda more than two element ama two item kuwaasoo having common name magac oo hal xabaa isla wataan okay next definition waxa waa array is variable that can store multiple values okay saad soo sheegnay variable iyo array waa same but difference ku dhexeeya waxa waa variable is used to store only one time to initialize the value okay if you initialize the variable once then you don't have another juice or يعني ku initialize garayso haddii aad mar labaad isku dayto inaa given value ama value as you summon initialize garayso ama you wanted to store another value macnaheedu wuxuu noqonaa value-gii kaleetooda la soo dhaafay qadkuu ka baxaa update-ka ka cusub kaliya ayuu ku soo gareynaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay variable-ka wuxuu awood u leeyahay inuu lagu keediyo only one time okay one time inuu yani wax lagu keediyo but difference u dhexeeya waxa waaye array iyada waxa waaye to store multiple value now one to thousands or elements we awoodaa inay yani lagu keediyo so advantage-ka hadda iska fahmi kartaa macnaha ability u leedahay ama awood more than one value in lagu keediyo okay next value next definition wuxuu noo noqonaa array is a collection of one or more than value of the same data type sidaan soo sheegnay same le definitionaadka isku wada mid way soo laalaabteen waxa waaye more than one value inaad u isticmaashid oo kuwaasoo same data type macnaha data type waxa waa integer float double character waxaasoo dhawaan data type arraygan ujeedu waa data type kiisu yani waxa derived data type ka imaaday because data type waa nuucyo badan ilaa saddex loo qaybiyaa basic data type ama fundamental derived data type iyo user defined data type so hada array waxay ka mid tahay derived data type-ka so halkan waxaa noogu xusan each value is called waxa loogu yiraa element of the array macnaha arrayga marka initialize garayso tusaale kale hiya syntax-ka data type-ka fiiri data type macnaha an integer double float midka doonta u isticmaalay array name-ka waxaa doontaa ka dhiganaya like student register number student roll number okay size-ka macnaha size-kaas wuxuu u taagan yahay elements okay arrayga macnaha 100 element ma qaadanay ma 200 ma thousands inta jecesho element sonka size-kaas wuxuu taagan yahay element okay each element macnaha wuxuu haystaa ha lagu dhahay the element of the array they share the same name okay because elements ka meeshan size kan meeshan tusaale kale boqol size kin waa 100 elements so like magacooda isku mid tusaale kale student register ama student name ama yani student roll number ama mobile tusaale kale mobile phone address maadaama hal magac isku mid ay wataan laakiin size-ku ilaa 20 ilaa inta jecesha uu yahay wuxuu noqonaa each element has its own index number okay sanadii soo sheegay array index number ay hawaataysa macnaha index number waxa waa starting from 0 okay tusaale kale haddii aad 5 element qaadato macnaha kow kan bilaaba wuxuu ka bilaabaa 0 ka bilaaba then wuxuu leeyahay 0 1 2 3 4 okay saas 5 ku yihiin marka kii shanaad qadku ka baxaa marka saasay 5 ku yihiin because 0 ka soo bilaabato types leedahay okay types-keeda maxaa kamid types-keeda waxaa kamid types of array waxaa loo qeybaa ilaa 3 one dimensional arrays two dimensional arrays and three dimensional arrays so
asxaabta typeskeeda iyo definitionkeeda hadda waan soo qaadanay muuqaalkan soo socdan waxaan faaqidaad ku sameyneynaa memory locationka iyo qaabka iyo array loo keydiyo okay asxaabta intaan u gudbin sida loo isticmaalo array waxaan doonayaa inaan tuso example ku saabsan variable okay variable and array waa same but difference u dhexeeya waxaan doonayaa inaan tuso okay so hadda waxaan isticmaalaynaa okay into integer data type. This is our data type. Okay, this one was variable. Okay, now into what was the declaration? Okay, what يعني قيمة أهمسي. هذا دوني نشيل هذا دوني أنا نشيل هذا أو قيمة أصلي كنقرأ ويقول نقرأ example أنا فاري وضوح السيستم. Okay. كان declaration كان initialization. Okay. memory location markii على دونه markii على السيرفر كنا memory location كيسا. Okay. location كمان يسوي نقولنا Okay. سيدا اللي شيء يعني variable بحوالي استعمالها إن لو كيديو value to store value. Okay. So name variable is a name. So variable كان ممكن يسوي قيمة لو كيد شنو هو كان Okay. address ko magaciisa wuxuu noqonaa address ka adiga 2000 wuxuu doono ku noqonaa oo isku bedela hada okay so indeed waa 2 bytes okay indeed ka soo kordhiya 2 bytes so saan markii tahay for example hadda qiimaha hadda bedelayo oo asliima 20 hadaan dhahno okay automatically 10 kan uu kansalna waxaan noqonaa meesha isku bedelay 20 okay so in this time multiple value isticmaalaysa value ga isticmaasho haddii aad bedesho qiimo kala siiso automatically qiimihii koowaad isku bedela qiimaha cusub uu qaadana computer okay so waxaan doonayaa multiple value isticmaalo multiple value means like waxaan doonayaa mobile number inaan kaydiyo student phone number student email student address so values badan aan doonaa in isticmaalo so dhibaatada ay leedahay ama disadvantage oo primitive data type waxa waa multiple value uu isticmaalaysa okay maxaa sameynayna multiple value inaan isticmaalo instead oo isticmaalaya multiple value uu isticmaalayna oo uu isticmaali karo variable because waxaan doonaynaa boqol student magacyadooda inaan sameynaa boqol student register numberkooda so boqol data taabaan soo qaadana mission way naga buuxsamee midda kale logic ahaan macquul ma noqonayso yani code waa kana complex balo noqona so waxaan isticmaalaynaa marka saas darteed array isticmaalaynaa so macnaha array loo isticmaalo waa saas okay multiple value inoo keedina for example inti okay 5 okay hadda meesha waxaan isticmaalnay this is data type key هذا هو array magaceeda name-ka 5 kan waa size ka waa 5 size kii gab waa 5 okay so hadda meesha waxa keedsan kana 5 ama 5 element la waxaan dhihi karaa isagoo ka kooban tahay 10 isagoo 20 ilaa iyo 5 so hadda waa la wadnaa so markii aan saan hadno 10 20 30 waxaan sameynaa location ka memory location ka memory location ka noqonaa block oo noqonaa ama wax badan oo isku xiran oo block so like kan kooban waa 5 element ka isticmaalo waxaan noqonaa 0 array marka ku bilowda index number micnaheedu waxa ka bilaabanaya 0 so hii waxa noqonaa 0 1 2 3 4 so total maxay noqonaa 1 2 3 4 5 okay so 5 for this okay qiimihiisa muxuu noqonaa 10 20 okay haddii aana kuwa kala qiimo aana siinin automatically c uu qaadana meesha okay haddaa laakiin value siiso caadi value-ga siiso uu qaadana okay memory location muxuu noqonaa address waa memory muxuu noqonaa ani number uu noqonaa like 10 2 up 14 16 and 18 so maxaa u dhexeeya 2 waa 5 into 2 waa 10 10 by kusoo kaa qaata
maxaa yeelay integerku wuxuu qaataa bytekiisa waa 2 byte integerka 2 byte uu leeyahay 2 byte okay so advantage يعني لا ده واحد multiple value استعمال كده okay difference يقول بحياه يعني value بلقى يا غير ده انت اسبلي كان multiple value كان on one value ده value ده قيمته بدشه قيمه وقدام بيكري وهو كان انا قيمه سدنا بدشه بس القيمه هو بدشه وهو كان لكن الرجع multiple value كيسنا استدا students register number students mobile number so advantage يعني difference يقول بحياه مقارنه